wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in dhalinyaro dhawaan ururka Al-Shabaab ay ka wadeen tuulada lagu magacaabo Carooti gobolka Shabeellaha Hoose lana sheegay in shabaabku ay ugu sheekayeen inay wada shaqeyn dhow la leeyihiin ciidamada militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta la sheegay qaar ka mid ah inay gooraceen halka kuwa kalena dambi ay ku waayeen isla markaana ay fasaxeen goorsi horeysa qadka telefoonka kula xiriirnay ayaa waxa dadka ehelka ah ee dhalinyarada qaar ka mid ah shabaabku maanta ay gooraceen waxa shaaca ka qaadeen markaas ragana lagu eedeeyeen wada shaqeyn dhow ay leeyihiin ciidamada militariga dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo muddooyinka dambe sii ballaariyay howlgalka adag ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya shabaab ayaa la sheegay in dhalinyarada qaar ka mid ah oo gaaraya labo inay gooraceen halka kuwa kalena la sheegay inay ku waayeen wax dambi ah gabi ahaana ay iska fasaxeen ragana la sheegay in la gooracayna waxa loo badiyeen shabaabku shaqeyn dhow in la leeyihiin ciidamada militariga dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo muddooyinka dambe howlgalka adag ka wada deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gooracitaanka raggan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya guutooyinka loo yaqaan Gorgor iyo Danab ay sii ballaariyeen howlgalka ay ka wadaan deegaanada dhawaan laga saaray shabaabka ee gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamadan ayaana sii xoojiyay howlgalka adag ay ka wadaan deegaanada xeebta ah kuwa oo lagu kala magacaabo Dhanaane Dharooyi sidoo kale Garas Macalin Soomo Sheekh Abkow oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose hoos yimaada degmada number 50 isla gobolkaasi Shabeellaha Hoose